saraakiisha iyo mas'uuliyiinta dowladda Turkiga ayaa waxa ay tilmaameen in ay socdaan dhaqdhaqaaqyo guud oo la xiriira qaabka loo furin karo howlgalkaasi iyadoona mas'uuliyiinta iyo xubnahan ay tilmaameen in ay wadaan dhaqdhaqaaqyo kale oo ku saabsan qaabka loo furin karo howlgallada waaweyn ee lagu soo saarayo shidaalka iyo kheyraadka kale ee dabiiciga ee Soomaaliya. sarkaal sare ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa uu qudhiisu tilmaamay in dowladda Soomaaliya ay wado qaabkii loo sameyn lahaa ujeedka ugu weyn ee howlgalkaas lagu gaari karo, taasoo ka dhigaysa in mas'uuliyiinta Ankara markan ay ka shaqeynayaan in la gaaro ujeedka lagu buddhigayo soo saarka shidaalka Soomaaliya. dowladda Turkiga ayaa war ka soo saartay qorshaheeda cusub ee ku aadan soo saarka shidaalka Soomaaliya. xukuumadda Ankara waxa ay tilmaamtay in ay wado dhaqdhaqaaq guud oo la xiriira soo saarka shidaalka Soomaaliya iyadoona muddo kooban hawshaas lagu qaban doono. warbaahinta Xuransi waxay dabagal ku sameysay warbixinadii ugu dambeeyay ee la xiriira dhanka iyo dhaqdhaqaaqyada guud iyadoona saraakiil ka tirsan Ankara ay sheegeen in ay wadaan dadaal weyn oo la xiriira qaabka loo soo saari karo shidaalka dabiiciga ee Soomaaliya. mas'uul ka tirsan waaxda arrimaha dibadda ee Faransiiska ayaa waxa uu dhawaan sheegay in kheyraadka dabiiciga ee Soomaaliya uu fursad weyn u yahay marka la eego soo saarka shidaalka iyo fursadaha kala duwan ee ka dhex muuqda dhanka Soomaalida, laakiin arrintaas aysan u suurageli karin marka la eego qaabka dowladda Turkiga ay wax u wado. ha yeeshee waxaa arrintaasi ka biyadiiday mas'uuliyiin ka tirsan waaxda batroolka iyo shidaalka dowladda Turkiga kuwaas oo sheegay in ay wadaan dhaqdhaqaaqyo guud oo la xiriira qaabka ugu fudud ee loo gaari karo ujeedka shidaalka Soomaaliya lagu soo saari karo. saraakiisha iyo mas'uuliyiinta ayaa waxay dhanka kale hoosta ka xariiqeen in ay wadaan dhaqdhaqaaqyo kale oo ku saabsan qaabka loo gaari karo hadafka ugu weyn ee shidaalka Soomaaliya lagu soo saari karo, waana ta keentay in mas'uuliyiinta Ankara ay diiradda saaraan qaabka loo sameyn karo shidaalkaasi iyo in la soo saaro guud ahaan dhaqdhaqaaqa guud ee ka dhex jira marka la eego dhanka badda iyo bariga Soomaaliya. mas'uuliyiintan waxay dhanka kale hoosta ka xariiqeen abaabulka iyo qorshaha weyn ee ku aadan in la sameeyo hadaf guud oo ah in diiradda la saaro qaabka ugu fudud ee loo soo saari karo shidaalka dabiiciga ee Soomaaliya, taasoo keentay in mas'uuliyiinta iyo xubnaha ay bilaabaan sida ugu fudud ee loo gaari karo soo saarka shidaalka Soomaaliya. nacfiga guud ee ku jira dhanka shidaalka ayaa ah faa'iidada ugu weyn ee Soomaaliya u aragto in la bilaabo qorshe iyo dhaqdhaqaaq weyn oo ku saabsan arrintan iyadoona ugu dambeyn ujeedka ugu weyn ee soo saarka shidaalka Soomaaliya dowladda Turkiga ay sheegtay in ay markaan wado qaabkii loo gaari lahaa buddhigiisa ama ujeedka ugu weyn ee laga leeyahay in laga gaaro, taasoo ka dhigaysa in diiradda la saaro in la ogaado xogaha iyo macluumaadka guud ee ku gadaaman soo saarka shidaalka dabiiciga ee Soomaaliya. sarkaal sare ka tirsan dhanka iyo dowladda Turkiga ayaa waxa uu dhankiisa tilmaamay in uu wado dhaqdhaqaaq guud oo ku saabsan qaabka ugu fudud ee loo gaari karo dhanka iyo howlgalkaasi, taa oo ka dhigaysa in mas'uuliyiinta Ankara ay bilaabaan isku dayo kale oo ku saabsan qaabka ugu fudud ee loo gaari karo hadafkaas, taa oo ka dhigaysa in mas'uuliyiintan ay sidoodaba ay bilaabaan in ay soo saaraan shidaalka Soomaaliya. xubin sare ka tirsan waaxda batroolka Turkiga ayaa tilmaamay in ay socdaan howlgallo iyo qaababka ugu fudud ee loo gaari karo gunta hoose ceelasha shidaalka Soomaaliya, taa oo keenaysa in Soomaaliya markaan yeesho fursadda ugu weyn ee la xiriirta in la soo saaro shidaalka dabiiciga ah ee ku jira dhanka Soomaaliya si ay fursaddan u noqoto mid weyn oo ay bulshadu si gaar ah ay uga warqabaan. wixii warar iyo dhacdooyin arrimahan ka soo kordha baahinteena tan xigta ee warbaahinta Xuransi ku daawo. waad ku maasan tahay daawashada ila socodka wararkayaga. fadlan haddii janalka uu kugu cusub yahay waxaan kaa codsanayaa inaad subscribe saarto oo riixda gamarka si aad u rukumato wararka iyo warbixinada kala duwan gudaha iyo dibadda. waad ku maasan tahay daawashada ku xirnaanta janalka.